السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن أصحابي ميل كستو أد نغا داوانيسان كسو دوادا مركلي قصوين كينا مid كميدا قصة عجيبة أيان تضبات كان إذين هيا سيدا عادة قصوين كينا وحنو كسو قادانينا بوغا قصوين كلا ياب كلا قري قراغا رير كويت إلي رادو أبو طلال الحمراني قصة وحي كان عدي دالك مصر قبل كالي رادو محافظة المنوفية tuulo la yiraahdo oo gobolka ka tirsan Baaquur la yiraahdo ayay ka dhacday sanadkii 2023 qisadan waa qiso la yaab leh waxa lagu daabacay wargeysyada xilligaas dadkii tuulada ku noolaa Baaquura ayaa aad markaa uga hadlay warbaahinta tagtay hadaba qisadan maxay tahay qisada magaceeda horta waxa la yiraahdaa qisada haweeneydii guursatay shaydaanka ama jinka guursatay waa sheeko la yaab leh oo aad cajiib u ah hadaba qisadan waxay ka bilaabanaysaa tuulada la yiraahdo Baaquur tuuladaas dalka Masar ku taala waxa ku noolaa laba gabdhood oo walaalo ah mid waxa la yiraahdaa Kawthar midna waxa la yiraahdaa Saadiya Kawthar ayaa weyn Saadiyada ayaa ka yar waa laba gabdhood oo dadka deegaanka ay gacan u taageen marka laga hadlayo sixirka la shaqaysashada jinka iyo waxyaabaha la midka ah wayab Kawthar iyo Saadiya waxay deganaayeen guri tuulada ku yaala guriga waxaa saf u gala dad fara badan oo walxahaas doonaya inay markaa ay shaqooyin u qabtaan sixirka nimanka iyo naagaha la kala geynayo dadka la isku dirayo dadka la kala furayo waa amalu shaydaana leeyahay ayay ka shaqaystaan marar badan ayay booliisku ka shakiyeen dadka way wareysteen waxay yiraahdaan midda weyn ee la yiraahdo Kawthar waxay dadka u sheegtaa inuu qabo jin guriga markii la galo dadka waxay u sheegaan adiga waxa saa ku haya adiga meesha maanta soo martay adiga saas dadkii tuulada way dhaaftay waxay u gudubtay meelo kale ilaa magaalada Qaahira looga yimaado oo dadka waxa iyaguna raba halka u soo doontaan hebel ii sixir hebel lacag u haysta lacagta iga qaad ninka yuusanaa kale iga guursanin balaayo dhan ayay meesha ku falkiyaan dhowr jeer ayaa booliisku ay isku dayeen guriga inay tagaan oo ay baaraan gurigii way tagayaan waxba ku arki mayaan wax ay arkayaan lama arko booliiska laftirkiisa ayaa sheekada og marka way baqayaan naagta jina qaba iska jir iyo markii la yiraahdo way cabsanayaan booliiska laftirkooda baaritaan badan basabaynayaan halkaasay ka shaqaysanayeen dadka waxay ka qaadaan dahab waxay ka qaadaan lacag way taajireen lacag fara badan ay yeesheen waxaas ay ka shaqaynayaan jinka oo la shaqeeya sixirka dadka ay waxaas u sameynayaan ay lacagaha ka gurtaan guri yaray markii hore deganaayeen kadib gurigii way ka guureen waxay degeen guri weyn ayay gateen masracay gateen beer baabuuray gateen way taajireen hantidii way badatay labadoodii hawshaasay ka shaqaystaan xataa dad waaweyn ayaa u soo dhuunta oo dawladda iyo meelaha ku jira xilkaas baan u baahnahay ninkaaba iga hortaageen ee ninka la tuur nagtay ka saaraan jinniye iyo waxbay u isticmaalayaan waa la yaabay dadka tuulada marka way cabsadeen waa laga baqaa waa la ixtiraamayaa markay dariiqa soconayaan nin walba lafiisu uga baqayaa haddana dadka waxay u sheegeen gabadha weyn in uu qabo jin ninka hawsha wada dhan inuu ninka jinka yahay wuxuu dhawaa karaan aanay jirin sheekadu waxay sidaa ku socoto maalin maalmaha kamid ah nin la yiraahdo Shacbaan ayaa wuxuu ka shaqeeyaa oo uu leeyahay magaalada Qaahira kawaan weyn oo ku yaala oo hilibka lagu gado laakiin ninka ma degana Qaahira oo shaqo kaliya u jooga laakiin toddobaad walba wuxuu soo aadaa tuuladan la yiraahdo Baaquur oo markaa xaaskiisa ay degan tahay halkaasuu
jamcihii la soo joogaa kadibna wuxuu ku soo laabtaa shaqadiisa. ninkii markuu muddo sidaa ahaa wuu wareeray, wuxuusan arki jirin ayaa ninkii ku dhacay. markuu yimaado gurigii oo uu tuuladii yimaado, ha sheegin wax ma jiraan, odagii raganimadii eber wax uu ka tari karo gabadhii uu qabay ma jiraan. ninkii wuu yaabay, xaggee lagaa galay, intee lagaa farsameeyey? tuuladuna dee ishacaacaad badanaa jira oo la leeyahay labadaa gabdhood ayaa waxaas ka shaqaysta, way taatikeeyaan dadka. sheeka waalala meesha ka socota. ninkii jazaarka ahaa wuu soo baxaa, wuxuu yimid qaahira si uu isu tijaabiyo. wuxuu guursaday gabar qaahiro ku guursaday. waa caadi, waa nin fiican, waa dagaalamayaa. laakiin markii uu tuulada yimaado, hubka dhigis uusan garanayna lagu sameeyaa ninkii. ninkii waa yaabay. naagtana dee naagtiisii koowaad waaye, aaduu u jecel yahay, tuulada u degan. naagtii waa yaaban yahay ninkan, war xaggee lagaa galay, sidee wax u jiraan? marka gabadhii uu qabaa marka waxay tidhi, war labadaa gabdhood ayaa waxaan sixir iyo waxa kan ka shaqeeye, war labadaa gabdhood maa soo weydiisid waxa ku haya. tuuladan tuulo caadiya ma ahane, waana la galaan u malaynayaa. markuu muddo sidaa ku joogay uu yidhi waxaas ma aaminsaniya iga daa, ayuu tegey. markii dambe dee waa nin iska waxuun loo sheegay. ninkii meeshuu tegey, safkii oo dhinac ka galay. shacbaan safkii u galay. shacbaan marka waa nin dheer oo bidaara leh oo xoog leh. masaaradu dee nimankooda inta badan waa xoogan yihiin, dad waaweyn oo xoog leh, waa lafa waaweyn. safkii u galay. safkii soo u socday wuu ku tegey. wuxuu yidhi problem ay haysta, maxaa ku aya? labadooda way is ag fadhiyaan. midda kawsaradda ah oo tiri jinkaa i qaba aniga, shaydaanka weynaa i qaba tiri, tusbax weyn iyo alaabay wadataa, tanna fooxay u shidaa, walaasheed way la shaqaysaa, way isla joogaan. ninkan marka waxaa la yidhi waxba ha sheegin, aamus, annagaa og warkaaga oo dhan, waxaa u timid oo dhanaa ognaha la yidhi. oo maxaa noo imid u yidhi, halkaa gacanta u dhawey, fooxa korkiisa gacanta saar. haye adiga waxba ma sheegaysa, annagaa waxa kuu sheegaynaa. indhaha isku qabo, dhab indhahi isku qabtay. markaase waxay tiri, xanuunkaasaa ku haya, markaa gurigaaga tegtid eber wax jira male, waa leeb dhacay bahalkii. haye sidee wax u jiraan? yaa i galay, ii sheega, maxaa dhacay? waa la garanayaa ay dheheen. gabadha aa qabto ma garanaysaa qaraaba yihiin? oo intaadan middan guursan iyada inaad isguursanaysaan iyo waxaas aad ku ballanteen, kadibna aad ku ballan furtay, ayaa ku taatikaysay waay. okay, magaaladan tuuladan cid kale oo wax taatikaysa ma jirtee, labadiina wax taatikeeye, adinka baa i taatikeeyo. tii weyneed kawtarteedii indhaha inta kala qaaday waxay tiri, annagaa ku taatikaynay, laakiin gabadhaas taatikadeedu arrin la yaab leh samaysa. marka waa inaad lacag fara badan bixisaa si lagaala hadlo jinkii weynaa. hawshaa marka loo galo tafkiik in la sameeyo waa wixii la kala furfuro. meeqaa laga rabaa intaan? ninkaan dee waa nin iska shaqaysto, kawaanu iska le xoogaa lacagna uu iska haystaa. lacagtii ka daldasheen, way ka qaataan. maalin kale uu soo laabta, weli hawshaadii waa lagu jiraa, intaas keen, wuu dhiibaa. nagta ka dhigeen ninkii lacagtii laga dhameeyey, wax u toosayna male. maalinkii dambe u soo laabta, wuxuu yidhi, sidee wax u jiraan? lacag waa dhammaatay, waxna iima qabanaysaan, weli sidaydaan ahay, sidee wax u jiraan waaye? markaase waxay tiri, aniga waa ka xumahay, anaa aasif,
أنا آسف دور جركو على العليس ومحا كعنتاي تفكيك هدي الله سماي باشان مالحونا الوحر ولا دوجيه إنا لما تالغا يا بايدي لا حول ولا قوة إلا بالله بحر عيواي انت wax kala ma hayno xal aan ahayn islaantan ina isaga tagto dhaagtaada kale oo meesha ku qabtana iska qabto tan waxa waaye hawsheedii meel xun aan la geeyay oo adika ma geeyay ma ida anagu de hawsha dada noo qabto shayaadiin iyo waxbaan u dirnay shayaadiintii marka waa laga furi waayay mid baa inta xiray ayaa la laayahay ilaaha ninkii wuu yaabay oo hadda waxba iima qaban kartaan miyaa maya lacagtayda ii soo celiyo markaasay yaraadeen laa meeshaan wax soo gala ma ahane wax ka baxa maba jiraan baa layidhi xal waa lagu hayaa waa la furaa laakiin waa inaa 50-50 qaadatid konton boqolkiiba inaad dhimanaysid iyo kontonna inaad badbaadaysid marka inaad dhimanaysa xataa u badan tahay oo lacag layma soo celinaya miyaa maya okay iska tegi ninkan waa wareersan yahay qaahiradiisu aaday muddo ma way maameeshii maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa la soo wargeliyay booliiska waxaa la yidhi labadii gabdhood gurigii ay deganaayeen dadaan maanta booqday oo tagay markay fiiriyeen labadoodii oo qoorta laga wada jaray maydkoodiyaa dhulka yaalla booliiska way soo carareen booliiska intaysan soo bixin culumay soo wateen oo qur-aan ku akriya meesha mid booliiska ka mida wuxuu yidhi naagta jinaa qabaa la yidhi xogteeda meeshaan booliiska waa hayaane warjinka amuu ka takhalusay uu dilay siuusan annaguna noo dilin aan culamo kaxaysana yidhaahdeen afar wadaad oo tuulada joogtay oo culamo ay soo kaxaysteen booliiska meeshii ay yimaadeen ninkii baaraha ahaa kiiska baarayay wuxuu yidhi nin khibrad leh aad dilay naagaha ixtiraaf yaa la yidhahdaa nin bahasha sida wax loo jaro yaqaana waxaa moodaa in cabir la saaray jag 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 marka waxay yidhaahdeen hawshaa hawl sahlan ma ah ninkii baaxidka ama baaraha ahaa wuxuu yidhi faraha ha la sameeyo مليان فراس وبح قرقة مالي والبع دور بقولوا قفات تكتا بيقى فرا لقيلا بيش بوليسكي وايابي وعير هذه قرقة روحوها باك انتا صفروضها بيلو البطالة بيلو حلقة بالله بيلو واي نك هذيك الشيء لو هذي قبلود ميتكو دي على قاضي فرتجير كالقري بوليسكي قاركودا وحي كنا على عسن داكتن jidka qabay jidkii tatagaaleen ayaa labadaba jidkii qoorta ka jaray ninkii baaraha wuxuu yidhi may waa baaraynaa kiiskaan ilaa meesha ugu dambaysaan isla tegaynaa wuu ku adkaystay waa la baaray xaafadihiyaa la waraystay tuuladii dadkii deganaa la waraystay halkan waraysiyadii marka waxaa kasoo dhex baxay dadka tuulada yaa la layiri maalmahan aan imaan nin shacbaan la yidhahdaa la yidhi muxuu qabtaa jazaar waaye dheh jazaar waxaa la yidhahdaa af carbeedka ninka ka shaqeeya kawaanlaha waaye haguu joogaa meel qaahira ku taalo shacbiya la yidhaahdo ayaa kawaan weyn uga furaya marka muddooyinkan ma imaanba ninkaas waagii jariimada ay dhacaysay kadib maba la arkin ninkaas ma soo noqon ninkii baaxidka marka maxaa u sawirmay ninka booliiska dee waxaa laga doonayaa inuu fiirada dadka meesha ka eegayaan meel ka duwan ka eego markii wuxuu yidhi ninka waxaan sameeyey waa nin khibrad u leh jarjaridda lafaha iyo dadka gowracidda iyo ninkii maxaa la yidhi waa jazaar u fiirsada waa nin kawaanka ka shaqeeya xaafadanna xaaskiisaa degan muddana uma imaanin بوليسكي مركو حيل هذا نكي بارها نكاس على سوقته
بوليس الله دري سوق قاهرة جوجا وسوق قبطي انترفيو ورئيسي على قاعد ورئيسي دير ما ليلة كذا ساعة كذا حكيت شفت معناها هبين كاس ساعة داس واحدة عين بوليس كل وصل شيء نكا واحدة حكيت شفت أنا قاهرة جوجا ما بحب هاي يا عضيني مخربكي مركا حريقي ماشي ذا وأنا حافظة عند جنا هاي هذا ها dadkii ugu dambeeyay waxa gatay dad dariska ku jiray ayaga marqaati loo wacay dadkii loo wacay dadkii waxay yiraahdeen ninkan saacad heblaayo habeen heblaayo maaratay meeshaana wax uga gadanay isagaana hilibkii waxa naga gatay ani waxa aniga meeshaana joogo ani meeshaas mar hore ugu dambeysay boliiskii waa iska siiyay waa la iska siiday ninkii baaraa wuxuu yiri la waa deynayna laakiin ninkan baasho ku meelaan ahayn asagu kuma wareeganayso u fiirsado booliiska waa la soo tagay ninkii waa la sii daayay shaqadiisu iska wataa ninkii baaraha wuxuu yiri tuulada hal bas ay yimaado oo manuufiyada gobolka ka soo tago tuulada yimaado ka shaqeeya ninka marka baska dadka tuulada wuu yaqaanaa dee tuulada laga leeyahay baska ninkii marka booliisku yeereen wareysi ka qaaday nin shacbaan la yiraahdo oo dheer oo bidaar leh oo saasa oo habeenka saasa ma garanaysaa hor habeenkaas ninkaas marka wuxuu yiri ninkaas habeen saasa wuu na soo raacay subaxiina waa qaaday dadka oo noqonayeen oo gobolka la sii tagayaan manuufiyada la yiraahdo kadibna qaahira laga sii aaday marka gobolka geeyay meeshuu ka sii baxay ninka habeenkaas waana soo raacay ahlan wa sahlan marqaati kala la helay mawjida booliiskii marka waxay yiraahdeen ninkii marka la soo qabto ninkii shacbaan dheer bidaar loof hala soo qabtay yiraahdeen ninkii loo tagay waa la soo qabtay حلي لصاحب أرتا بينا مو شيء تالي كذابة تالي بينالا تالي ورمحا بينالا كواي ورياد ايش علي الشيخ أنا شيء كذا سانو شيء وحلقا ربا ليري هبين كاس مالكاس هبين كي بسك قدام بيسو ماذا صور راعين نكي بسكا أيام مرقاتي أهالي dadka qaar xataa way kugu marqaati ku fureen waxa marka beetuna u sheegtay ninkii marka waa la kacay saaridu de waa lagu garaaca meesha afis ma jiro ninkii marka wuxuu yirnimay way dilinin sida ay wax u dhaceen aan idin sheegaya haye ni arikaas ay ugu dhacay naagtii waxa igu samaysayna oo waa ku socotay la yirina naagtii ima sheegayaan lacagna way iga daldasheen wax aan ku qaban karnana ma leh yiraahdeen ilaa haddaan shaqadaada galayno waa dhimanaysaa marka aniga maana waxaas wallahi alazim wuxuu yiri waxaan go'aan ku gaaray waxa sida yeelay naagta qaraabadeeda naagta ah oo balanta uga baxday ma dadka waxaan sameeyso ayaga ma aha ayaga aniga go'aan ku gaaray inaan qorto ka jiro هاي والله وحيري وحن سجود هاي إلى هز قفك قدام بيا وكسر بحاي ضدك صفك كجري بناك تاجنا مركب الباب حرتين كوريا وقفنا وش كجرين أيام صوغر كراع من دي أفله وحوق بدن وسوقات كوان كاكسوقات وحيوات ياسين الباب كان قراعي الباب كان مركان قراعي يا واي شعبان واي والشعبان شغدي وانا مايني كوثرتي يا دهيسو كوثرت ومد جناي قبله كوثرتي يا والله هل أرين بس عربا إنا كويدي بليس يغفر بوليس كان مالكي أي بارتان كقولي كسمينيين الباب لتشبيي دريشد لجبيي وحبا ما يسان عاركين موقتي قفك قريقا سوكو سوقالي ودادك وحاو سميي وحا كوا كالي بوليسكا كالي سببتا إليه جنا هوشا كدبي ساسي كشاكيين
gabadhii marka albaabka furto maxaa rabtaa tiri eedaysa maalinta saas u kala tuuray nin xoog badan oo ahay hal maruu mididii inta la soo baxay maba qaylin karinba uu ku dhufanay qoorta dhulka taal waa ninkii sababta loo leeyahay nin khabiira helay sida wax loo jarjaro qoorteedu dhulka dhigay tii kale oo guriga ka soo baxday yaa waay dhahaysa ayuu idana inta u tagay isla sidii hal mar uu ku dhuftay dhig dadka dariska xataa qayla maxaa la qaylina madaxa xaggaas uu boodboodaa keligiis faraq oo leeyahay gurigiyaa marka waxaan ka dareemo yidhi guux wallaahi alcadiim yidhi jinka naagtaan qaba leh shayaadiinta guriga ka buuxa haddaanan qoortayda ka jarin albara waxaan arkoo yidhi guriga dhexdiisa waxaanan u jeedin oo isdardaraa markaa arkoo dhahay guriga inay shanqarti yaraatay ayaan guriga inta galay armaajo meeshaana oo dadkii lacagta ay ka gurteen ay uga buuxdo dahabkii ay dadka uga gurteen uga buuxdaan qaatoy waxaygaan qaatay aniga dee lacag iga maqan yiri marka waa ay dhaceen waxaygii wax ka badan buu qaato igana qoortaan ka jaro balaayeedu ku dhacday ma saasa haa saasaan ku dulo yiri aniga saasa ii galeen xaaskaygii aniga waa kala tagnay yiri inaan furo waaye maxaa iyaan uraani raganimadii dhan iga dileen naftayday u yimaadeen ninkii waa booliiskii waa yaabeen ninkii waa la soo kaxay maxkamadda yaalkaan qaadiyaashii maxkamadda kiiskii dhegaysteen waa yaabeen qaadiyaashii waxay yidhaahdeen annagaa isku noqonaynay bal horta noo suga qaadigii weynaa go-aanuu gaari waayey garsoorayaashii kaluu la tashaday maxaa yeela ninkan wuxuu taagan yahay aniga difaacu nafsiyaa ku jiray naftaydiyaa loo yimid mar haddii loo yimaado macalinka weyn wax yaalla macalinka weyn howlgabaa laga dhigu yidhi laa xawla walaa quwata ilaa billah markii dambe booliiska markii nimankii garsoorayaasha waxay isku raaceen war ninkan maadaama uu dil geystay uusan dowladdana soo wargelin uusan soo dacweyn dadkan uusan dacwad ku soo oogin oo asaga wixiisa inta qarsaday go-aan iska gaaray macsaa dowladda maya dil toogashaa lagu xukumaalay oday shacbaan bidaarow tiirka ha la geeyaalin halkaas ha lagu toogto halkiyaa ninkii lagu toogtay ninkii ha la toogto ma xumee jaraa'idkii oo dhan baa soo qoray dadkii tuulada waaba la haystayba dadka tuulada dowladdii ay yaabtay mudaaharaad ay samaynayaan ay ku taageerayaan shacbaan waxay yidhaahdeen saaxiriintiiu naga dilay tuulada dadka dhan nimanka dadkan xoogay ku haysteen waa laga baqayay sida amiir camal ay u maamulayeen meesha xataa booliiskiyaa baqaya gurigooda tegi lahaay qisadaasu marka waxay noqotay qiso aad iyo aada u shaacday sida qoraaga uu leeyahay masar dhan aad looga yaqaano gobolka ay ka dhacday waxa la manuufiya tuulada gobolka ka tirsan waxa la baaquura oo qisadu ay ka dhacday runtii waxay ahayd qiso la yaab leh ninka shacbaan leeyahay nin ragu ahaa aniga horta saas aaminsanay ninka nin ragu ahaa laakiin hal mid uu ku qaldaraa waxay ahayd kiiskan inuu dacwad ku soo ogo isaguna wuxuu islaa haddaa dacwad iyo saaxiriinta la aadid hadday macalinka weyn damiyeen adigana inay ku daminaya ama waa kuwaalaya kuwaa ka takhallusu jira sidaysan dad kale weerar ugu qaadin marka qiso runtii waxay ahayd qiso la yaab lay ahayd aada cajiib u ah marka adinkuna fakar iyo aragti bal qisadan wixii idinkaga soo baxay noo soo qora aad baan u jeclahay commentiska aad ka bixisaan iyo sida aad fariimaha noogu soo qortaan qisooyinka aad baan u akhriyaa dad badan oo aad iyo aad runtii uga falceliyaan arka mid kalena ha iloobinina fadlan gareeya likes wax kaa dhibi mayso haddaad cusub tahayna subscribe youtube-keena qisooyinka nadaara 2 iyo facebookgeena markaas si aad noogu soo biirto qisooyin kalena aan kugu soo gudbin haddaba fakarkiina waa noo muhiim qisadeennii toddobaadkana asxaabay intaa ayaana kusoo gabagabaynaynaa inta aan mar kala kulmayno iyo qisooyin kale asxaabay nabadgelyo